buugayga tahriibka baan waxaan kaga sheekeeyey qiso yaab leh cajiib leh oo dhacday waaqaca dhalinyaro Soomaaliyeed oo meelahan ka qaxday oo tahriib ku jirta Suudaan iyo Liibiya dhexdeeda oo magafa sugaayo xuduudda Liibiya ku sugaayo xaggana uga cararay Suudaan ka baxay oo saxaraha ku lumay oo muddo 18 cisho ah saxaraha ku jiray oo gaajo iyaga kaadidooda xataa cabay qaarna dhintay ayaa galab iyagoo sheekaysanaya oo meel gaariga kaga jabay fadhiyo bacaada ya waa 2005 2006 meelahaas casrigaas waxaa jiray casr warlords wax la yiraahdo Soomaaliya ya lordat alharb ya hogaamiye kooxeedyo dagaalama nin walba aag u xiran yahay qabiil yahay mid walba dhalinyaradii meesha joogtay siyaasadda ka sheekaystaan siyaasaddii markay ka sheekaysteen bay hogaamiye kooxeedyadii bay la gashay hogaamiye kooxeedyadii markay la gashay bay hogaamiye kooxeedyadii wax ka sheegeen kan hogaamiye kooxeedkan kale wax ka sheegay kanna hogaamiye kooxeedkan kale wax ka sheegay wuxuu yiri kaas ma fiicno oo saas iyo saas weeyo hadama dadku dilaad ku laaya kan wuxuu yiri kaasna dadku laaya saas u yeela kan saas u yeela hawshii waa si socotay ما هبل بقى حكي شيء جيسا أنا ما هبل بقى حكي شيء جيسا والله بالله توري قبل يسول صوب بحب صاري قاعد يقول لي هنا هنا يكون تقالمه يجنكوا قلايا ما تقنا أو كل شهيد يعني أو كانوا هدو الشهيد أو كل شهيد كانوا هدو الشهيد توري ده للضرو وكل شهيد يعني وهو شهيد يعني ورود يجوا حم ويصير حمر كسعيري أما قال قاعد كسعيري أما كسماي كسعيري كسو شهيد يا وقوية marka ummadda la leeyahay naftaaday ka socota adiga waxa ku haysta dhibaatada inay cararkan iyo gaar la'aanta iyo gaaj la'aanta iyo shaqo la'aanta aday ka socota way maba miirsanaysa maxaa xalaha marka sababtii ogaanay musiibadan jirta walaalayaal meel kale ma jirto hal aadinina idaacadaha iyo facebookyada waxa idin sheegayaan hebel baa fiican hebel baa toosan hebel baa qaldan hebel baa kana waxa soo dhan ka soo baxa runta idin sheega ka soo baxa qul huwa min indi anfusikum maxaa xalaa marka xalku waxa weeye aayadaha kala sheegaya marka aayadaha kala sheegaya oo ay ka mid tahay aayada mar badan aan ku celcelinay ya oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala sababta markuu sheegay dhahara alfasaadu fi albarri walbahri bima kasabat aydi الناس liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un marka aayadan dhahar alfasaad fi albarri tanay fasiraysa qulum min inda anfusikum ta ya awlama musiba asabatkum musibatun ay fasiraysa aayada kale badan wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wax kale badan waa leedin dhaafay maxaa xala in allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim meel kale uma dhaafi karo la'allahum yarji'un لعلهم يرجعون رجوع على الروا مركا لانه ميلان ادني هيجد علابان ادني ميل ان وحبا جرينا ادني وانا سو نقونا مركا سو نقوننا وانا فكركينا iyo aqligeena iyo go'aankeena wax ka bedelnaa taageeradeena wax ka bedelnaa عواطفتنا iyo shucuurkeena iyo dareenkeena dadka aan siinayno waa inaan wax ka bedelnaa haddaynan wax ka bedelin taas waxaan imanayaan maxaa qabanaya haddii inagu aanu isbedelno marka maamulka iyo dawladda iyo shaqaalaha iyo siyaasiga iyo hoggaanka waa isbedelayaan definitely laakiin wax ka horeysa annaga inaan isbedelno annaga inaan xisaabtano maxaan wax ku xisaabinaa maxaan wax ku qiyaasnaa isbedelkeenu muxuu noqonayaa waa inaan xisaabtano maslaxadaan ku xisaabtano maxaa saxa maxaa sharciya maxaa sharci ahayn ya طاعada iyo taageerada aan siinayno qof kasta ha noqdo bil macruuf waa wixii inama taa'atu bil macruuf wixii sharciga waafaqsan ba qofka lagu taageeraa qof kasta oo la yiri hal taageero hadduu waalid yahay xataa waalidka soo yani bacd allah ilaahay ma amro waalideen ihsaanan kama ina hadeen يعني والد كلفتي يسوي حكوا حرنتهاي بالمعروف حاكم كمان اللي يري هلا تاجرها ينك السلطان كاه ينك أضيع ينك الشيخ يملا يري هلا تاجره هلا
هل أضيعه ها وبالمعروف مقيد واحد بالمقيد واحد بالمعروف إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق